Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Videogeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay passive sats oo walaalaheena ku xiran kanaalkan ay naga soo dalbadeen. Waxaanan ku sharxi doonaa videogan insha Allah haddii Ilaahay haddaba maxay ku kala duwan yihiin active iyo passive? Active-ka waxaa muhiim ah in aad sheegto qofkii verbiga sameeyey, ama laakiin passive-ka muhiim ma aha in aad sheegto qofka sameeyey verbiga. Tusaale, mein Vater fragt mich, aabahay ayaa i weydiinaya su'aal. Imikuu i weydiinaya aabahay su'aasha. Yaa i weydiiyey aabahay, yaa la weydiiyey aniga. Passive, ich werde gefragt. Waxa la i weydiinayaa su'aal. Muhiim ma aha su'aasha qofka ku weydiinaya in uu ku jiro meesha, laakiin waxa muhiim ah wixii lagu weydiinaya in aad ku sheegto meesha, waana presence. Su'aasha passive-ka la isweydiiyo waxay tahay von wem wirst du gefragt? Ayaa ku weydiiyey su'aasha. Markii hore waxaa ku yiri ich werde gefragt. Waxa la i weydiiyey su'aal. Ma a sheegin qofkii i weydiiyey. Saas daraadeed markaad rabtid inaad ogaatid qofkii i weydiiyey, waxaad i weydiini von wem wirst du gefragt? Ayaa ku weydiiyey su'aasha. Jawaabtu waxay tahay ich werde von meinem Vater gefragt. Waxa i weydiiyey su'aasha aabahay. Tusaale kale, Ali holt dich ab. Ali ayaa ku qaadaya. Passive-kii wuxuu noqonayaa du wirst abgeholt. Waa lagu qaadi. Markaa su'aashu waxay noqonaysaa von wem wirst du abgeholt? Iyaa ku soo doonaya. Jawaabtu waxay noqoni von Ali. Haddaba passive-ku laba u kala baxaa. Vorgangspassive iyo Zustandspassive. Haddaba waxaan ku bilaabaynaa Vorgangspassive presence oo ah tusaalayaashan. Active, meine Freundin vermissen mich. Asxaabtayda ayaa i tabaysa. Passive-kiina sidan buu noqoni. Waxaa la soo horreysiinayaa ich oo ah object. Waxa ku xigta werde. Waxaanad u dambaysiini vermisst oo ah verbigii past ah. Markaa rabta in aad dhistid Vorgangspassive sidan oo kale ayaa loo dhisaa. Su'aasha la isweydiinayna waxay tahay von wem ayo, yacni ayaa ku tabay. Aad weydiinaysid qofka. Markaas jawaabtu waxay noqon von meinen Freunden. Asxaabtayda. Tusaalihii labaad, active, die Frau schlägt dich. Gabadhan ayaa ku dilaysa ama wax kugu dhifatay. Saa hore u soo sheegnay passive-ku muhiim ma aha in aad sheegto qofkii wax kugu sameeyey, laakiin wixii lagugu sameeyey yaa muhiim in aad sheegtid. Saad halkan ku arkaysaan waxaa la soo horreysiinayaa passive-ka qofkii wax lagu sameeyey oo ah adiga. Waxaad ku xijisiini wirst. Waxaanad ugu dambaysiini past perfect oo ah geschlagen. Su'aashuna waa sidii oo kale waxay tahay von wem ayo, ama ayaa wax kugu dhiftay von der Frau. Jawaabteeduna. Tusaaleheenii saddexaad oo yadna ah Vorgangspassive presence. Wird entführt. Waa la afduubay. Yaa afduubay. Yaa imanaysa meesha oo ah von wem. Von den Verbrechern. Raggii qaatiliinta ahaa ee usoo dhacay guriga amaba meesha qofku joogay. Active-kuna wuxuu noqonayaa die Verbrecher entführen ihn. Raggii qaatiliinta ahaa ayaaba afduubtay. Tusaaleheenii afraad, ich werde betrogen. Waa lay khaayimay. Von wem ayo.
for meine Frau. Islaantaydii ayaa i khaayintay. Aktiifkuna wuxuu noqon meine Frau betrügt mich. Islaantayda iyaabaa i khaayimaysa. Waxaan halkan kusoo gabagabeynaynaa Vorgangs Passiv Präsens tusaalayaal. Ich werde angeguckt, waa la isoo eegay. Du wirst angeguckt, waa lagu soo eegay. Sie, es wird angeguckt, waa la eegay. Wir werden angeguckt, waana la soo eegay. Ihr werdet angeguckt, waa la idin eegay. Sie werden angeguckt, waa la eegay. Hadda waxaan galaynaa Vorgangs Passiv Perfect oo ah wixii tegay. Waxaanad isticmaalaysaa hilfsverbiyadii ahaa zaynka. Tusaale, sidii caadiga ahayd marka hore soo aragnay ayaa loo dhisayaa zaadka amaba linka. Waxa aad soo horreysiini qofkii lagu sameynayay verbiga oo ah object ish ah. Waxaad ku xijisiin hilfsverbigii zaynka ahaa oo bin ah. Waxaa kaloo kusii xigaya angeguckt oo ah verbigii. Waxaana ugu dambeynaya verdantii aan marka hore isticmaalaynay ayaa past laga dhigi oo waxay noqotay worden. Du bist angeguckt worden. Sie, es ist angeguckt worden und so weiter. Saasa usii soconi. Imikana waa Vorgangs Passiv Präteritum oo ah marka passiivka loo isticmaalayo wax tegay oo Präteritum ah. Aktiifku waa sidan. Farah guckte dich an. Farah ayaa ku eegay. Verbigan eegista ee guckte ayaa ah Präteritum. Marka passiivka laga dhigayana waxay noqoni du wurdest angeguckt. Kelmadii werden ahayd ayaa wurde isku bedelaysa. Saadska isla sidii passiivka unbaa loo dhisayaa, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Verdanta unbaa wurde noqonaysa. Tusaalayaashna saana usii soconayaan. Sie, es wurde angeguckt. Wir wurden angeguckt iyo so weiter. Iminkana waa tusaalihii oo Passiv Präteritum ku saabsan. Ich wurde von allen Menschen geliebt. Du wurdest von Amina angerufen. Wir wurden gefragt. Saas ayaa loo dhisayaa zaadska. Iminkana waa 3 tusaale oo ah waqtiga soo socda iyo waqtiga jooga iyo waqtiga tegay. Waqtiga soo socda waxaa weeye ich werde alle Menschen lieben. Waqtiga joogana waxaa weeye ich werde von allen Menschen geliebt. Waqtigii tegayna waxaa weeye ich bin von allen Menschen geliebt worden. Marka waqtiga mustaqbalka ee soo socda la sheegayo, verbiga asalkiisii ayaa la soo qaadanayaa sida ich werde alle Menschen lieben. Lieben asalkeedu waa lieben. Saasay hadda u qoran tahay iyo u taalaa. Halka labada line kale tusaale kale la dhahayo geliebt iyo geliebt worden. Qaybtanna waa qaybtii labaad oo ah Zustandspassiv. Qaybtan waxay kaga duwan tahay qaybtii hore. Waxaa laga tegayaa werden tii la socotay marka hore Vorgangs Passiv. Waxa aan isticmaalaynaa hilfsverbigaan isticmaalaynaa. Tusaale, das Bett ist gedeckt. Sariirta waa la goglay. Zwei Menschen sind verletzt. 2 qof ayaa la dhaawacay. Tusaale kale, das Museum ist heute geschlossen. Museumka ama madxafka maanta waa la xidhay.
Die Wäsche ist gewaschen, dharki waa la maydhay. Die Hemden sind gebügelt, shamiisaantii waa la kaaweedeeyey. Das Auto ist repariert, gaadhigii waa la hagaajay. Der Tisch ist gedeckt, miiska waa la goglay. Die Blumen sind gegossen, ubixii waa la waraabiyey. Das Wasser ist eingekühlt, biyihii waa la qaboojiyey. Das Brot ist geschnitten. Furunkii waa la googooyey. Gabagabadii cashirkeenna Aktiefsatz waxa muhiim ah wichtig ist wer etwas tut. Waxa muhiim ah qofka wax samaynaya. Passivsatz wichtig ist dass etwas getan wird. Waxa la samaynayo. Bildung des Passivs werden ka la dhigayaa plus partizip perfect yaa loogu dambaysiinayaa. fadlan sii faafaa videoga si ay dadka kale uga faa'iidaystaan like iyo subscribe-na ha ka iloobin